scholarship bada internet waad ka heli kartaa kuwa caalamiga aan sheegnay waad heli kartaa sidoo kale jaamacaduhu waxay bixiyaan scholarship jaamacadda haddii aad Oxford University website-keeda gasho oo aad searching engine-ka ku qorto scholarships waxa laga yaabaa inay ku soo baxaan waxa jaamacadda scholarship ku jiro oo dhan Stanford University Mareykan haddaad gasho oo aad searching engine-keeda ku qorto scholarships waxa ku soo baxaya dhammaan scholarship-ada hayso dhan marka fursaddu xagay taalaa kow internet-ka ama database-yada internet-ka website-ada scholarship-ka kuwa aan sheegnay scholarship opportunities scholarship positions opportunities for Africa fast web iyo meelihii kale aad heli karto sidoo kale waxay taalaa institutionada hay'adahan waaweyn ee scholarship-ada bixiya daarku wuxuu leeyahay website gaar ah Erasmus Mundus wuxuu leeyahay website gaar ah Korea Global Scholarship wuxuu leeyahay safaaradda laga xareeyaa Kenya aad ka arki kartaa Japan wuxuu leeyahay website gaar ah scholarship-ka Sheffield website gaar uu leeyahay haddii aad mid kasta website-kooda gasho xilliga la furayo xilliga la xirayo shuruudaha dhammaantood waad heli kartaa jaamacadahana sidaas oo kale ayaad uga heli kartaa ugu dambeyntii qaybta koowaad scholarship-ka waad heshay ama fursaddii waad aragtay waadna is ogtahay waxaad u baahan tahay inaad eegto scholarship-kan shuruudihiisa anigu ma ka bixi karaa oo waxaa mamnuuca inaad iska xarayso ama iska raadsato scholarship eligibility-giisa aadan ku jirin eligibility-ga maxaan ka wadnaa waa in aad scholarship-ka xarayn karto tusaale waxaa lagu yidhi scholarship-kan wuxuu u furan yahay wadamada soo koraya World Bank ayaa listigiisa haya waxaa lagu leeyahay listigan wadamada ku jira kaliya ayaan u ogolnahay intaadan scholarship-ka xarayn listiga eeg Soomaaliya haday ku jirto shuruudii koowaad waad ka soo baxday waxaa lagu yidhi scholarship-kan haddii aad ka weyn tahay 30 ha soo xarayn waad eegtay baasaboorkaagii 30 jir waa ka yartahay scholarship waad xarayn kartaa scholarship waxaa lagu yidhi xaree haddii aad English language IELTS ama Duolingo ama TOEFL aad haysato waa diyaar waxaa lagu yidhi scholarship-kan waxaa soo xarayn kara qof kasta oo aan ahayn caafimaad dhammaan medicine mooyaane inta kale waad xarayn kartaa waxaa lagu yidhi scholarship-kan waxaa xarayn karaa qof kasta oo baranaya waxa la yiraahdo data science ama maadada la xiriirta data science waad baranaysaa waad xarayn kartaa macnaheedu waxaan ka wadnaa eligibility-ga si dhammaystiran u akhri si aad ugu eegto inaad ugu qalantay scholarship-ka adigoo raadinaya inaad hesho medicine inaad master ku aado haddii aad maanta oo dhan baarayso scholarship loogu talagalay social science-ka adigana waqti baa ka lumaya natiijo fiican ka heli maysid marka waa maxay waxaad qiimeynaysaa naftaada scholarship-kana waad qiimeysay kadibna inay isleeyihiin baad eegaysaa naftayda waxa haysato documentiga haysato English level-ka haysato baasaboorka haysato ma u qalmaa inaan scholarship-ka xareeyo eligibility-ga markasta waa muhiim waana meesha aan leenahay evaluating fit waa inaad fit tahay oo aad u qalantaa scholarship-ka meel kale oo muhiim oo intaan scholarship-ka la xareyn waxa weeyaan documentiyadaada inaad gacanta ku haysato imse qof waa baasaboor leh gacanta taagan baasaboor Soomaali ma aha mid kale imse qof baa baasaboor Soomaali leh okay wiilashu baasaboor Soomaali fiican bay haystaan gabdhaha 25% oo hawlka fadhida baasaboor leh roughly less than 25% haddii aynu 200 qof ku fadhino oo ay baasaboor inaga haystaan 50 qof macnaheedu waa maxay scholarship biri dhacaya ama isbuuc dambe dhacaya ama 2 isbuuc kadib dhacaya ma xarayn karno weeyaan inteena kale marka horta baasaboorkaagu ha iska ka diyaarsanaado guriga ha ku yaal dadku waxay yiraahdaan marka hawl igu soo baxdaan diyaarsanaya oo maxaa haddaba ka haysta waa sax waan dareemi karaa lacag qaali ah lagu sameeyaa baasaboorka actually ma ahan lacag inta lagu sameeyo laakiin ujeedka aad leedahay ka weyn baasaboorkaaga iska soo qaado $150 $170 haddana laascaanood baa la keenay Soomaa SSC waa shaqeynaysaa laascaanood bay baasaboorkii kugu keentay buuhoodana uu ku yaalaa walba xilwaanki buuhoodana ka hadlay marka baasaboorkaaga soo samayso anigu baasaboorkii koowaad aan samaysto 5 sano waxaan samaystay 2015kii wuxuu iga dhacay 2020kii 2015 ma samaystay 2020 buu iga dhacay hal meel kuma aadin gurigaygu see ka yaala oo iga dhacay laakiin maxaan ku xareeyay 7 ama 8 scholarship ku xareeyay nasiib xumo kuma helin laakiin wuu dhacay baasaboorkaas caawa halkan waxaan ku kala taganaa assignment-iga koowaad baasaboorkaaga iska soo samayso
xafiiska baasabooradu meeshu ku yaala ma aqaano taga baasaboorkaaga yare buluuga jeebka iska soo gasho guriga dhigo fursadu waa iman doonta haddii alla idin okay documentiga labaad waa maxay imsa qof jaamacadda meesha fadhiya okay waxaa jaamacadda meeyay less than 15% 15% imsa qof baa shahaadadiisu u tasdiiqan tahay oo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda mariyay hal qof kaliya iyo xildhibaanka iyo saddex qof macnaheedu waa maxay waa sax dalkii federaal buu noqday waxay ahayd adeegyada dawladda in laga helo magaalo kasta iyo goob kasta laakiin federaalka inoo aan qaadanay ayaa wali dalku wuxuu u shaqeynayaa sidii unitary levelka ahaa qof la sacaanood jaamacad ku dhameeyay ayaa waxa la leeyahay waxaad u doonataa tasdiiq muqdisho waa unfortunate weeyaan waa nasiib darro waana arrin ay tahay inay dawladda Soomaaliyeed wax ka bedesho waa in tasdiiq aan ka heli karaa gurigeyga ka heli karaa waayo anigu xaq uma leeyahay inaan safro oo aado waxa la yiraahdo xamar ticket baa iga baxaya meel aan dega ma haysto sabab aan documentiga xamar ugu sii dhibaa ma jirto adeega dawladeed waa in guriga la keenaa laakiin arinta ka baxado kuma taala hadda shahaadada qaado aroortii mid baska sky iyo maxaa la magaciisi dalmarta raacaya u dhiibo diyaaradda xamar lagu saaro lagu soo tasdiiqa shahaadada wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha waxbarashada $20 baa ka qaadaysa shahaadada secondarygana waa sii raacinaysa $40 shahaadadaada oo tasdiiqan guriga ku taal tasdiiqu muxuu ka caawinayaa tasdiiqu wuxuu ka caawinayaa scholarshipada inta ugu badan aan arkayay shahaadooyinka Soomaalida oo dhan ma ciseeyaan shahaadooyinka Soomaalida oo dhan ma ciseeyaan laakiin shahaadadu haday authentic leedahay oo tasdiiq leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ka muuqato shaambadeedii wasaaradda waxbarashada shaambadeeda ka muuqato waxa laga yaabaa inay yiraahdaan procedure bu at least soo maray xitaa hadaad mid been saarato wuxuu ku oranayaa qofka scholarship qofka shahaadada leh ee waxbarasho soo saaray ee arrimaha dibadeed soo saaray qof xitaa tuug xariif u noqon kara macnaha qof macnihi saaqida oo aan u qalmin scholarship kama marka shahaadadaadu waa inay ku tasdiiqan tahay gurigaagana ku taala baasaboorkaaga shahaadadaada waa inaad haysataa oo dokumentiyadaadii gurigaaga dhigo qaybta labaad igu cilaabta imsa qof baa shahaado caalami oo English haysta IELTS yaa diyaariyay waligi IELTS exam yaa diyaariyay ونصيب هناك قف IELTS diyaariyay inuu ma jiro kuma eedeysnidin waayo Soomaaliya oo dhan ma ku taala xarun he dad miis qof Soomaaliya jooga lagu ma talagelin IELTS diyaariyo weeyaan laakiin hadda jigjiga laga furay xarun IELTS oo dhow Nairobi way ku taala waan idinku talinayaa inaad IELTS diyaarisaan sida loo diyaariyaa gadaal dambe inuu ku tagi doonaa hadii alla idmo laakiin hadii aad IELTS weydo fursad kale aad haysataa wali meeqa qof baa jaamacadooda ka qaatay shahaadada loo yaqaano medium of instruction medium of instruction macnaheedu jaamacadaadu inay cadeynayso inaad English wax ku baratay waa warqad yar oo tabcaan oo A4 oo xagga sare kaga qoran tahay medium of instruction English waxaanu cadeynaynaa hadaanu nahay jaamacadda Leiden University inuu ardaygan Faadumo iyo Farxiye iyo jaamac ay English ku soo dhigteen jaamacadooda scholarship aad u badan dunida ayaa booska shahaadooyinka caalamiga ee Englishka aqbala maxay medium of instruction jaamacadaada ku noqo dhiibda medium of instruction kadibna guriga dhigo ma dhibaatay ku haysaa intaas sidee loo qoraa medium of instruction internetka kala soo baxa jaamacadda iyadoo qoran u gaxta haday qolada meesha joogtaa kula fahmi weydo okay inta kale waa documentiyo u baahan inaynu isla eegno diyaarino waa documentiyo hadda aad soo helayso ma recommendation letters ku laba qaab weeyaan imma inuu ku recommend gareeyo qof employer ah oo u shaqeynaysay imma inuu ku recommend gareeyo maxay professorkii ama lecturerkii jaamacadda haddii lecturerka jaamacaddaadu ku recommend gareynayo recommendation letter ku qorayo waxaan kugula talinayaa macallimiinta Soomaaliyeed waa aqaana macallin baan ahaa laftigeygu inta badan xoog iskama saaraan recommendation letterka ay qorayaan waxa laga yaabaa inuu iska yiraahdo Safiya Faarax Diiriye waa aqaana iskuulka ka baxday jaamacadda ka baxday waxaana ku dhiirigelinayaa scholarship inay hesho qofka scholarship ka qiimeynaya recommendation letterka uu ku go'aan qaadanaya waxaan kugula talinayaa in kastoo in akhlaaq ahaan wanaagsaneyn recommendation letterkaaga inaad adigu qorato
adiga is yaqaana waa in akhlaaq ahaan ma fiicna laakiin scholarship ka sida siyaasadda uga shaqeynaa xogaa politics baan dhexgaleynaa dirty work baan dhexgaleynaa internet ka gal sida recommendation letter loo qoraa akhri 200,000 oo recommendation letter baa ku jira kadibna 4-5 kamida soo dejiso akhri ha koobiyeen ha paste gareyn adigu isku tal xagaad ku fiican tahay research kama ku fiican tahay koorsade ku fiicneed marka jaamacadda joogtay extracurricular activities ma ku fiicneed class participation kama ku fiicneed waa maxay meelaha hal adeygaaga ah gol jilcidaadu waa maxay adigu intaad qorato macalinka ula tag kadibna macalin iyo akhridhe wax ku dardhe kadibna shaambada iyo saxiixa iyo letterheadka jaamacadda ha soo saaro recommendation letterhead waa inay leedahay shaambadna waa inay leedahay meel kale oo muhiim ah jirta waa in email professional uu ku qoran yahay dhibaatooyinkan haysta Soomaalida waxa kamid ah email professional ma naqaan @gmail.com ma naqaan @gmail.com scholarshipbada caalamiga ah ee wanaagsan indhaha lagaaga dhufanaya waa in emailka aad ka diraysaa recommendation letterka uu noqdaa hadduu jaamacad ka socdana waa inuu .university noqdaa haddii uu shaqo ka socdana oo dawlad tahayna .gov waa inuu noqdaa hadduu NGO ka socdo waa inuu .org noqdaa hadduu ka socdo shirkad ganacsina waa inuu .com noqdaa sidaas darteed jaamacadu email way haystaan emailka ha kugu qoran recommendation letterku marka waa laba qaab marna jaamacadu waxay ku leedahay ama scholarship waxay ku oranayaan intay portalka meel ku furaan ama database-ka meesha waxaad gelisaa qofka recommendation ka bixinaya kadib waxaad leedahay caawiye faarax diiriye ayaa recommendation ka iga bixinaya emailkiisuna waa kan systemka ayaa emailka u diraya emailka aad ku dirtay kadibna macalinku emailku ka dhex bixinaya recommendation letterka ama warqad cadaana ayuu macalinku ku soo qoraya ku saxiixaya kadibna aad dokumentiyada raacinaysa marka recommendation letterkaagu waa warqad aad iyo aad u muhiim ah haddii aad maamulahaaga shaqada ka qoranayso iyo haddii aad macalinkaaga ka qoranaysaba waa in ay noqotaa mid ka turjumaysa waa inay mid ka turjumaysa noqotaa oo marka la akhriyo la arkaya qofkan inuu yahay qof hadduu shaqo ka yimina si fiican u shaqeeyay hadduu waxbarasho ka yimina si fiican wax u soo bartay inta badanna waxaad isku daydaan recommendation letter markaad qoranaysaan inaad isku dartaan labadaba jaamacaddana mid ka soo qaado shaqadana mid ka soo qaado warqadda kale ee muhiimka ah waxa weeyaan 3 warqadood oo isku mid ah oo la yiraahdo motivation letter letter of intent statement of purpose personal statement afarta warqadood macna yar oo isu dhow leeyihiin meelaha qaarna way ku kala duwan yihiin laakiin ujeedkoodu waa maxay waa scholarship markaad xareynayso CV-gaaga jaamacadda way aragtay ama institutionku ama guddidu CV-gaaga way arkeen shahaadada jaamacadda way arkeen language certificate-ka way arkeen waxay arkeen formka aad soo buuxisay way arkeen laakiin kuma yaqaaniin wax dhaafsiisan magacaaga iyo CV-gaaga ma yaqaaniin motivational letter of intent statement of purpose personal statement personal essay magacii loogu yeedho waa meesha scholarshipka decisiveka u ah waa warqadda aan oran karo way ugu muhiimsan tahay scholarshipka warqad ka muhiimsan oo scholarship lagu xariistaa ma jirto macnaheedu waa maxay waa jaaniskii aad guddida qiimeynaysa scholarshipka kaga gadi lahayd inaad tahay qofka ugu fiican ee mudan in la siiyo scholarshipkan ay hayaan warqadda maxaa lagu qoraa gadaal baan ku arki doonaa waxaa lagu qoraa career goalskaaga waxaa lagu warbixiyaa naftaada markaan ku leeyahay cabdi cali faarax diiriye jaamac oo ku nool laascanood maaha waa inaad waxbarashadaada ka warrami kartaa qof baan ahay soo bartay psychology isla markaana ka shaqaynayay maalmihii u dambeeyay oo dhan meel clinic ah oo aanu dadka kula tacaalaynay caafimaadka maskaxdooda la liita boqol beeshan baan anigu u shaqeeyey waxaan doonayaa inaan mustaqbalka furto meel anigu aan leeyahay clinic ah waxaan doonayaa in aad iga caawisaan jaamacaddiinu kooraska noocaasa si aan mustaqbalkayga go'aan uga gaaro dalkaygana ugu shaqeeyo hadhow maadaama dalkayga dadka xanuunsanaya ee bilaa daryeelka ay ku badan yihiin motivation letter waa intaas ood balbalaarisay laakiin waa maxay naftaada markaad ka warramayso safiya jaamac inaad tahay looma baahna faarax diiriye inaad tahayna looma baahna waxaa loo baahan inaad tahay waxbarashada heerkee tahay research interestkaagu meesha ku fiican tahay research potentialkaagu waa maxay koorsooyinkee adag ood haysataa scholarshipka maxaad ugu baahan tahay jaamacadda maxaad ku dooratay maxaad rabtaa inaad noqoto mustaqbalkaaga waa run hadda waan yar dedejinayaa waana laga yaabaa inay adkaato laakiin
caawa kumaynu talagelin inaynu scholarshipka markaynu riddaa ka baxna xareyno caawa waxaan ugu talagalay anugu inaynu iscanaanano laascaanood ahaan SSC ahaan maxaynu scholarshipada dunida ugu yarnaa marka loo eego Soomaalida sidoo kale waxaan ugu talagalnay qofka dhalinyarada ee Soomaaliyeed inuu fahmo fursado xagee yaalaan marka macnaheedu waa maxay waa tilmaan iyo tusaale caawa shaqadii ma shaqadu dhinacaaga soo jirtaa laptopki waad haysataa internetkii waad haysataa mobilkii waad haysataa tilmaantii waad haysataa baaro furihiina waa lagu siiyay warqadda kale ugu muhiimsan waxa weeyaan warqad iska fudud oo adduunka scholarshipada waxa laga yaabaa inay ku weydiiyaan ma soo shaqaysay haddii ay shaqo aad tiraahdo haa waan soo shaqeeyay employment verification bay ka rabaan employment verification wax kale maaha cusbitaalka laascanood haddaad ka shaqayso agaasimaha cusbitaalka wuxuu kuu qori karaa safiyada jaamac diiriye ama cali faarax diiriye wuxuu ka tirsanaa jaamacaddayada ama iskuulkayga labadii sane u dambeeyey wuxuuna ahaa shaqaale wanaagsan waa employment verification shaambaduu kuu saaraya emailku kugu dhufanaya kadibna waa diraysa waxaad u fudud weyn sidee loo qoraa employment verification internetka ku jirtaa la soo bax adigu qoro ula tag qofka aad doonaysa inuu ku saxeexo CV-ga waa meesha ugu muhiimsan yasna scholarshipada muhiimka u ah CV diyaarintu iyadoo aad u fudud oo internetka taala ay haddana Soomaalideena aad inoogu adagtay anigaygaas muddada CV-yada diyaarinayay haddaan caawa u fadhiisto CV siraahdo diyaari hawl baan ka maraa welina CV master meehi CV-gayga mastered kuma yihi macnaha si fiican uma diyaarin karo laakiin waxaa jirta qish aad u fiican oo aan ku siin karo oo ah Eurobus waxa la yiraahdo Eurobus waa website diyaarsan oo category kala leh oo aad u baahan tahay xogta inaad geliso bas isagaana ku hagaya wuxuu ku leeyahay uu ku furmaya user baad ka samaysanaysaa Eurobus markaad user ka samaysato wuxuu ku leeyahay profile-kaaga geli waad gelinaysaa Cali Yusuf Kennedy ku dhashay inta iyo inta shahaado noocaas wata category-gaas shaqadaada isagaad gelinaysaa isagaa kuu kala saaraya kadibna PDF ahaan baad u download garaysanaysaa sawirkaaga isagoo wanaagsan sidoo kale internetka ayay taalaa sidee CV loo diyaariyaa YouTube-ka ku jirtaa CV-gaagu waa inuu qurxoon yahay waa inuusan been ahayn CV-gaagu haddaad been sheegto waa lagu soo qabanaya waa inuu yahay kooban yahay oo uusan 7 page ahayn ama 8 page ahayn waa inaad CV kooban oo 2 page aan ka badnayn aad diyaarin kartaa resume-ku waa inuusan 1 page 2 page ka badnayn waana inaad run ku sheegtaa shaqadaada waa inaad sheegtaa jaamacadaha iyo waxbarashadaada sheegtaa achievements-ka aad gaadhay waa inaad sheegtaa haddii aad bilada qaadatay waa inaad sheegtaa luqada haddaad taqaano skills haddaad taqaano sida Microsoft haddaad ku fiican tahay haddaad ku fiican tahay data science R Python meeshaad ku fiican tahay applicationada waad ku qoranaysaa CV-gu laakiin waa muhiim dhammaan dokumentiyadaas scholarship-ka ka hor waa inaad gacanta ku haysataa recommendation letter-ka waa inaad scholarship-ka soo heshaa waayo scholarship-ka la recommend gareynayo qofku waa inuu garanaya laakiin CV-gaagu waa inuu iska diyaarsan yahay mar kasta baasaboorkaagu waa inuu ku diyaarsan yahay shahaadadaada tasdiiqa waa inay ku diyaarsan tahay medium of instruction language-ka waa inaad haysataa motivation letter-ka iyada waxaa la diyaariyaa markaad scholarship-ka og tahay aad u baxayso waayo scholarship kasta wuxuu leeyahay goal gaar hal motivation letter kuma xareyn kartid dhammaan waxa scholarship-ka yaalo dhan scholarship-ka tusaale ahaan oo kale Jarmalku bixiyaan danbay kale yihiin waa inaad dantooda fahantaay oo aad dantooda ugu xidhaa kuwa ay Ingiriisku bixiyaan danbay kale yihiin waa inaad dantooda ugu xidhaa kuwa Mareykanku bixiyaan danbay leeyihiin kuwa jaamacad gaar ah bixiso dan gaar ay leedahay maadada caafimaadka kuwa ku baraya dan gaar ay leeyihiin kuwa ku baraya social science-ka dan gaar ay leeyihiin waa inaad fahamsan tahay scholarship-kan aad xareynaysaa magacii hadafkiisuna waa maxay kadibna mid kasta aad danta laga leeyahay aad iyo danta adigu aad leedahay aad isku xiri kartaa dokumentiyadaas gurigaaga ku yaalaan waana intaadan scholarship-ka xareyn qaybta kale scholarship-ka marka aad bilowdo xareyntiisa aad iyo aad bay runtii u fududahay dhaafabti aad iyo aad bay u fududahay waa dokumentiyada hadda kale aan soo celinay scholarship tusaalahan kale waxaad ku talagashay inaad xariiso Chevening scholarship kale Chevening scholarship kale markaad ku talagashay inaad xariiso 4 EC buu kaaga baahan yahay baan iri 4 EC waad diyaarsanaysaa sidee loo qoraa internetka yaala uma baahnid inuu xitaa qofku caawiyo maanta internetka ka soo helaysaa haddaad qof diyaarsan tahay markaad diyaarsato ayaa waxaad leedahay yaa scholarship hore u helay oo iga saxa oo aan raadiyaa CV-gaaga haddii aad qoran karto qoro haddii aad qoran kari wada internetka ka eego markaad qorato yaa CV hore diyaariyay oo iga saxa personal statement-kaaga diyaarso scholarship-ka sidoo kale waxa uu muhiim ah wax la yiraahdo forms scholarship kasta form buu leeyahay formamka scholarship-adu waa formam aad iyo aad restricted ah
haddii aad erey ka mid a khalado foomkaas meel yes laga rabay haddaad no tiraahdo ama meel tig laga rabay inaad saarto aad tigta ka tagto dadka scholarshipbada adduunka saxa waa dadka ugu xaasisan baansi meel yar oo yes aad ka tagtay ayay kugu reebayaan xaasidnimo kama aha waxay ka tahay qof kale oo saxay baa jira adigu maadaama aad eegi kari weyday detailka yar uma qalantay sanadka inaad scholarship ka timaado maalin dhaxdaas waxay ku dhacay scholarship aan xareynayay ayaa waxaan ka ilaaway hal su'aal baa ii dhuumatay form dad scholarship uu leeyahay hal su'aal baa ii dhuumatay su'aashaas waa maxay waa meel yar ay ku qoran tahay scholarshipka markaad dhamayso shahaado ma rabtaa inaad qaadato waxaa la rabaa inaan qoro maxay yes maxaan qoray waxba ma qorin boo iskaga tegayba islaan coordinator ii ahayd nafta iga saartay waxay gaadhaxtaa scholarshipka inay iga kasbasho waa meel yar oo basiid ah oo haddii aadan detail oriented ahayn oo aadan documentigaaga foomkaaga ku noqnoqon ku celcelin hubin 3 maalmood 4 maalmood isbuuc aadan hubin khasaare ku gali kartaa scholarship oo dhan ayuusa costi ka gali karaa marka formiska scholarshipku foomamka qaar way diyaarsan yihiin oo online baad ku buuxinaysaa foomamka qaar waad la soo degaysaa PDF Acrobat Reader hadda haysato laptop kugu jiraan way kugu furmayaan foomamka qaar inta la daabaco oo gacanta lagu buuxiyo scholarshipbada inta badan aan horumarsanayn ayaa dib loo iskaan gareeyaa loo diraa foomka scholarshipku waa muhiim iska ilaali meel kastana akhri meel kastana siday tahay u buuxi waxa muhiim ah application formka marka aynu ka shaqeynayno instructionka haddii lagu yiraahdo motivation letter 2 page ka badan soo dir 2 page ka badan waa diri kartaa laakiin haddii lagu yiraahdo 2 page ka badan ma diri kartid 2 page ka badan isku dirin haddaad 3 dirto waa lagu kansalaya waayo waxaa imanaya qof 2 page soo diray oo awaamirtii adeecay instruction waa muhiim haddii lagu yiraahdo email ha noo soo dirin ha dirin email haddii lagu yiraahdo noo soo dir 3 documenti 4 ha dirin 3 dir Soomaalida dhibaatada nagu dhacdo waxa kamid ah scholarshipbada barigan xarin jiray kowgii hore waxaan soo oran jiray wax badso waayo waxaan soo oran jiray impress garee macnaha dadka ka yaabi inaa u qalanto inaa nif fiican tahay inaa ka badbadi macnaha markaas waxa u diraysaa shahaado yar aad ka qaadatay NGO yar meelaha ku yaala shahaado yar aad ka qaadatay online yar shahaado yar 3 baysteena oo aan scholarshipkaaga wax badan ku kordhinay laga yaabana in la yiraahdo qofkan waa qof wareersanba 100kan shahaado noo soo diray oo scholarshipka laga kansalo scholarshipka raaci documentiga relevantga ah ee u qalma inuu documentiga ka mid noqdo documenti kasta ha u dirin instructionka ku qoran tahay noo soo dir intaas documenti inta documenti lagu yiraahdo dir u dir haddii ay niyadaada ku jirto nimanka ka yaabi ala yaabi doona marka dambe haddii kuna 16 documenti noo soo dir 16 u dir 17 noo soo dir 17 u dir 19 ha dirin 15 ha dirin haddii ay wax ka maqan yihiin waa lagu kansalay haddii wax lagu daraan inta badan laguma kansalayo laakiin waxay tilmaamaysaa qayrul mas'uulnimadaada iyo sida doonayso in aad dadkan aad u khiyaamayso ama aad u impress garayso ama mas'uuliyad darro ama inaad instruction ka fahminba instruction waa muhiim scholarshipka instructionada aan ilaalino accuracy waa muhiim accuracy maxaan ka wadaa xogta meesha kuugu taala inay hubanti tahay haddii aad jaamacadda dhamaysay 2024 oo aad qorato 7 sano u dambeeyay baan shaqeynay waa sax waa shaqeyn karta laakiin waa inaad cadaysaa in adoo wax baranaya aad shaqeynayso haddii kale waxa loo qaadanayaa adigoo wax barashada ka dambeeya sidee shaqo 7 sano kadib weeli karta waa inaad documentiga ku qortaa anigoo wax baranaya oo jaamacadda ku jira ayaan shaqeynay si aan su'aal dambaba kugu soo noqon sidoo kale waxa muhiim ah meelaha aan isticmaalayno professionalism-ka kamid ah isay markaad qorayso 2 page baa lagu diray half ha qorin half iyo badhna ha qorin 2 page oo dhameystiran qor 2 page oo dhameystiran qor form baa lagu diray formkaasi waa 4 page 4 page ba buuxi su'aalaha ku hor qoran su'aalaha kaga jawaabin sida yar kooban macallin baan ahaan jiray imtixaanaadka markaan saxayno kale waxa jira ardayna wax fiican buu qorayaa su'aasha ardayna wuxuu ku qorayaa tusaalaan kale 2 kelmadood imtixaanka markaad saxayso keebad dhibco badan siinaysa qofka waxa saxan ee faraha badan soo qoray Soomaa qofkaasi muxuu tilmaamayaa wax badan qoray inuu naftiisa cabiri karo Soomaa tusaalaan kale waxaan kugu yiri waa maxay kamarad baan kugu yiri su'aal yar basiin ku weydiiyay waa maxay kamarad baan kugu yiri haddii aad ka jawaabto tirada kamaradu waa wax lagu duubo waa su'aal waa jawaab fiican laakiin marka aad sharaxdo tirada kamarad waa aalad tiknoolajiyadeed loo adeegsado sawir lagu qaado
فيديو lagu duubo mararka qaar drone lagu xiro mararka qaar lagu qaado barnaamijyo noocaasa Canon bay leedahay Sony bay leedahay ta 5D ga waxaas ku fiican tahay ta 5D ga waxaas ku xun tahay tripod wax la yiraahdo lagu xiraa marka doonayso in sare loo qaado hadaa doonayso light baa lagu xidhaa habeenkii markaad wax duubayso qofka inta ay sharaxi kara aniga maxaan dareemayaa markaan macallinahay proud baan dareemayaa qofkan inuu qalmo inuu su'aasha fahmay wax akhriyay wax soo qoray luqadan waa muhiim English baa laga yaabaa in wax lagu qorayo luqadaada language expression kaaga waa la eegaya qofkan inuu language ka duruurin karo oo akhrin karo essays-kaaga iyo forms-kaaga ka muuqanaysa hadhow intaad suulahay interview-ga in lagu ogaado document-yada laga ogaanaya qofka laba kelmadood qoran waxa la leeyahay English-kiisu ninkan ma fiicna ama gabadhan ma fiicna qofka laakiin concrete language fiican oo dhisan qoray waxa la oranayaa qofkan document ahaan waa fiican yahay interview-ga la isla gaadhay marka scholarship xareyntiisu waxay kaaga baahan tahay inaad hesho aan ku soo dhawaano documentiga rasmiga ah scholarship-ka lagu shaaciyay haddii aadan documenti rasmiga ah scholarship-ka lagu shaaciyay helin waxa ku qiyaamayn doona qolooyin dadka lacagta ka shubta oo kula scholarship baan ku xareynaynaa ama halkan clixi oo laga yaabo in akoonada ka jabsadaan scholarship documenti rasmiga raadi documentiga rasmiga markaad raadiso shuruudaha raadi shuruudaha markaad ka bixi karto dhammaan documentiyada ku qoran oo dhan raadi documentiyada markaad soo wada hesho motivation letter qurux badan qorato essay qurux badan qorto CV qurux badan qorto markaas jaamacadaha ama institutionada qaarna waxay leeyihiin in online loogu diro oo portal bay leeyihiin portalka soo ma taqaaniin portalku waa website wax kale ma website scholarship ku ka furan yahay oo aad ka xareyn karto qaarna email baa loogu diraa documentigaaga intaad compile garayso oo isku darto ayaad email ugu diraysaa laakiin inta badan waxa caalamiya in portal laga xareeyo scholarship-ka waayo in email laga xareeyo aad bay hadda u yaraatay dunida marka scholarship application ku waa maxay documentiyadaada soo hel shuruudaha ogow inaad u qalanto ogow kadibna markaas ayaad go'aan gaari kartaa inaad scholarship-ki xareyso interview-ga haddii aad soo gaadho oo document stage-ka soo dhaafto interview-ga aad buu fudud yahay qaybihii u dambeeyaan sii galaynaa interview-yada waxaa la qiimeeyaa 3 waxyaabood waxaa la qiimeeyaa runnimada qofkan ma yahay qofkii documentiyada noo soo diray oo waxaad soo qortay English-ka ana dhameeyay waan aqaanaa markii lagu soo horfadhiistay English-ka ma garanaysa waa hubin la hubinayo qofkii ma tahay waji ahaan baasaboor ahaan shahaado ahaan qofkan horta hor fadhiya ma yahay qofkii scholarship-ka aan siin lahayn waxyaabaha labaad ee la hubiyo waxa kamid ah waxaa jira interview questions format ah oo dunida oo dhan isla yaqaano tusaale ahaan oo kale waxa kamid ah scholarship-kan maxaad u rabtaa inaad ugu guuleysato maxaad naga soo doontay weeyaan macnaheedu scholarship-kan maxaad ka soo doontay ama jawaabta ah maxaad u tahay qof u mudan scholarship-ka inaan siino jawaabtaas iyadoo 200 oo milyan oo qoraal laga sameeyay internet-ka taala interview sida loo galo internet-ka taala YouTube-ka ku jirtaa Google-ka ku jirtaa meel kasta ka heli kartaa iyadoo Soomaali lagu qorayo ka heli kartaa marka scholarship-ka interview-gu uu fudud yahay format la isla yaqaan maraa oo ah jaamacadaadii nooga waran maxaad horta baratay waxaad baratay maxay ahaayeen research-ka dhinacee xiisaysaa dalkaaga ka waran hadhow markaad qalin jabiso maxaad doonaysaa inaad noqoto maxaad dalkaaga ku soo kordhinaysaa su'aalo muhiim ah laakiin jira oo khiyaamo ah oo laga yaabo in la isku gaado oo ay ka mid tahay dalkaaga ma ku noqonaysaa oo kale haddii ay ka dareemaan dalkaaga inaadan ku noqonayn waxay u badan tahay in scholarship-ka ka kansalaan waayo waxay ku arkayaan inaad tahay qof scholarship-ka u raadinaya fursad maxay ah inuu ku dhoofo ama ku baxsado dalkayga waan ku noqonayaa baa la yiraahdaa maalin dhaweeyay ay weydiiyeen aniga gabadh bay weydiisay interview ka qaadayay scholarship jarmalka miyaad ka baqaysaa inaad ku noolaatay gud intaan waxbarasho jarmal ka helay kadibna gabadha waxa la oran jiray Raquel waxaan ku yiri Raquel aad baad mahadsan tahay waan fahmay baan ku yiri su'aasha waxaad ka wado waxaan ahay baan ku yiri nin muslina laakiin diimaha waan aqaanaa waana la noolaan karaa diimo kala duwan waxaan ahay nin dumarku dhibaato iguma hayaan inaan la noolaado waxaan ahay baan ku yiri straight dhinacyada kale ee reer Yurub macnaheedu horumariyaan wax dhibaato iguma hayso waxaan ahay baan ku yiri qof madow cadaanka inaan la noolaa dhibaato iguma hayso waxaan ahay baan ku yiri qof progressive ah ama progressive waxaan hor socodka siyaasad ahaan ama bidix dhaxa ah oo aan midigta iyo dhinaca u janjeerin laakiin kuwa midigta fog ah ee aragtiyada taqliidiga extreme-ka ah qaba
dhibaataygu ma hayaan inaan la noolaado macnaheedu waa maxay waxay doonaysaa inay ogaato jarmalka culays iyo baqdin ma ka qabtaa ujeedadeedu ma ahayn anigu sidaan u arka jarmalka dhaqan ahaan diin ahaan jinsi ahaan dadku way kala duwan yihiin kadibna intay aad u qosashay oo ugu yaraan 30 sekin qoslaysay ayay u tiri cabdi intay ku celcelisay haddana intay waxay tiraahdaa garaweyday bay su'aashii ka sii gudubtay macnaheedu waa maxay qofkii waxaad fahamtay meeshuu u socday haddii markaa lagu yiraahdo scholarship-kan maxaad u rabtaa inaad ugu guulaysato waa inaad qofka kaga soo wareegi kartaa meel aad iyo aad u muhiim ah waa inaad tiraahdaa horta waan u qalmaa marka hore waanan u baahanahay dalkayga markii aan dhameeyo scholarship-kan waxaan noqon doonaa qof noocaya noocaas dalkaygana waxaa ka jirta baahi noocaya noocaas interview-gu markaa inahaas ku kooban yahay luuqadaada in la eego inaad u qalanto scholarship-ka su'aalaha guud ee maxaad waxbarashada u rabtaa in lagu weydiiyo iyo marmar dhifa in lagu weydiiyo waxaan aad baranaysa inaad garanayso waxaa dhici karta in haddii aad xarayso public policy oo kale lagu weydiiyo wax public policy-ga la xidhiidha haddii aad psychology baranayso wax psychology-ga la xidhiidha in lagu weydiiyo ama theory caana lagu weydiiyo psychology wuxuu leeyahay theory basic oo caana maadooyinka aad barataan oo dhan theory caana ay leeyihiin tusaalahaan kale qofka economics-ka baranaya ee aan demand iyo supply kala saari karin the economics ma baran waxaa laga yaabaa in demand iyo supply iyo arrimo la xidhiidha lagala doodo oo basic ah si loo ogaado bal heerka aad aqoontaada u gaarsiisantahay interview-gu markaa wuxuu u baahan yahay inaad diyaar tahay inta badan taygaaga haddaad nin tahay taygaaga yar baad iska xidhanaysaa muhiim maaha inaad sirwaal wadato inaad macmuus wadato intaas sare lagaa eegaya haddaad gabar wadatana khamaarkaaga xijaabkaaga waa okay facialka inaad ilaaliso oo aad maanta oo dhan qofka kula hadlaya aad indhaha aad la raacdo markaad jawaabaysa inaadan dhididin laptopkaaga ku hor yaalla environment qurux badan oo internetku strong yahay interview-ga la raadso waa interview-gu waa 10 daqiiqo oo noloshaada wax ka bedeli karta haddii aad isu diyaarin weydo oo aad interview-ga isu diyaarin weydo sida ugu sarreysa dhar ahaan muuqaal ahaan aqoon ahaan internet ahaan capacity ahaan la falgal ahaan iyo communication ahaan khasaare ayaad kala kulmaysaa scholarship-ka aad darajada soo waday waa interview-gu waa stage-ka u dambeeya saas darteed interview-yada haddaad soo gaadhaan guushii waxaa kaaga dhiman 10%. 10% waxay ku xidhan tahay sidaad diyaarka u tahay waayo scholarship-ka 20 qof la rabo in la siiyo 40 qof baa interview laga qaadaa si booskiiba 2 qof ugu tartanto ama 3 qof ugu tartanto markaa 3 qof keliya aad la tartamaysaa 3 qof waa ka soo bixi kartaa waa inaad markaa u diyaarsan tahay inaad interview caalamiya gasho luuqadda challenge-geeda gadaal baan kaga wada hadli doonaa haddii alla idmo dhaafi abdkaa waxaa jira oo aan qaybtan ka ilaaway sanadka waxaa soo baxay AI ama artificial intelligence ChatGPT YouChat WeChat maxaa la yiraahdaa Google AI Apple AI iPhone-ada lagu soo kordhiyay artificial intelligence-gu waa mustaqbalka dunida waa casri dunidu AI bay aadi doontaa ama AI ayaa mujaraha u qaban doona scholarship-ada inta dadka xareeya waxa laga yaabaa inay adeegsadaan AI ama ChatGPT oo kale aan ka soo qaadan waxa laga yaabaa personal statement ChatGPT ku qoray inaad dirto statement of purpose ChatGPT ku qoray inaad dirto waxa loo yaqaano statement letter of intent oo ku qoray ChatGPT dadka scholarship-ka committee-ga fadhiya waa dad ka aqoon badan hayasi waa dad tiknoolajiyada ugu sareysa iyagu haysta hayasi waa dad fahmi kara qofkan yar ee soo xareysanaya scholarship-ka horizoniska aragtidiisu xadidan tahay oo dhan dhinac kasta oo aad ka fikiri karto way iyaga kaasii dheer saas darteed scholarship ha ku dirin documenti uu internetka kuu qoray documenti ChatGPT kuu qoray oo intaad fadhiisatay aad tiri statement of purpose iyo qor haddaad dirto plagiarism-na waa lagugu soo qabanayaa plagiarism-ka waxaa dheer si fudud baa loo fahmaa language-kan uu ku hadlo ChatGPT waa language predictable ah markay arrin ka hadlayso waa la yaqaanaa erayada isticmaasho sidoo kale waxaa ka maqan insaaniyadda ka maqan kelmado waaweyn oo qurqurux badan oo isku xidhan unbay noqonaysaa mooyaane waxaa ka maqnaanaysa dareenkii iyo caadifadii iyo struggle-kii la rabay scholarship-ka inay ka muuqdaan marka dadka scholarship-ka doonaya inay xareeyaan statement-giina ha ku qorina ChatGPT ha ku qorina YouChat ha ku qorina meel kale idinku qorta waayo statement-gaagu waa waxa la akhrinayo waana sheekadaada ma maqli jirteen qoladii dadka dhiirigelin jirtay
statement of purpose waa sheekadaada adaa la rabaa sheekadaada inaad qorato laakiin sidee buu ku caawin karaa sidoo ku caawin karo ChatGPT waa maxay inaad structure-ka ku diyaarsato structure-ka maxaan ka wadaa motivational letter qor baa lagu yiri inaad weydiiso tiraado ChatGPT waa ku salaamay saaxiib motivational letter baan rabaa inaan qorto scholarship-ka Sheffield ama dad structure noocay ayaan motivation-kayga waafajiyaa kadib ku jawaabaya wuxuu ku leeyahay paragraph-ka koowaad waxaad kaga hadashaa naftaada adigoo ka hadli doona qodobada 1 2 3 paragraph-ka labaad waxaad kaga hadashaa shaqadaada paragraph-ka saddexaad waxaad kaga hadashaa inta ay inta structure-ka intaad qaadato oo laptop-ka word furato waad ku dul qoran kartaa marka aad motivation letter-kaaga qorato oo dhamaysato intaad soo qaadato isagoo dhameystiran oo sheekadaada ku qoran tahay halkaasaan ka imi saasaan qabtay waxaasaan qabtay ChatGPT waa u diri kartaa si uu proofread kugu sameeyo grammarka kaaga saxo coherent kugu sameeyo meelaha aan iswaafaqsanayn oo erey maanta oo dhan soo socday inaan erey kale ka hor imaan laakiin la iswaafajiyo uu ku sameyn karaa meelahaas plagiarism ma la isku qabto waayo marka aad qorato laasaanood baan ka shaqeynayay 45 qof baan daweeyay dhakhtar baan ahaa qof baa wuxuu qabay nooca iyo nooca kiiskaas ay igu adkaa ChatGPT arrinta ma ogaan karo qofka interview-ga qaadaya ama documentiga hayana uu arkayaa sheekadan inay tahay sheeko gaar ah oo qofku isagu gaar u leeyahay oo aan internet samayn karin laakiin marka aad tiraado waxaan ahay qof hardware kara oo aad iyo aad u wanaagsan waxbarashada ku fiican jaamacadda u qalma waa la arkayaa in language model-ki ChatGPT ka tahay saas darteed waxaan ka dardaarmaynaa ChatGPT iyo dhammaan ayayada kale oo dhan inaan loo isticmaalin scholarship xareynta laakiin waad kaalmaysan kartaa kaalmaduna farsamo u baahan tahay farsamadaasna waxa ugu weyn in aad structure-ka weydiisato inaad proofread iyo edit ku samaysato in ay ka caawiso xitaa grammatically waxyaabaha anigu aan u adeegsado waxa kamid ah mararka qaar inaan iraahdo English fiican markaad qorto inaad tiraahdo meelaha qaar English-ka waa soo celinaysaa redundancy baad yeelanaysaa inaad tiraahdo kelmadaha aan soo celiyay oo kale iga saar kelmad kale igu bedel oo halkii aad laba jeer ka soo celin lahayd ereyga tusaalahan oo kale strong inuu erey kale strong u dhigma ku keeno synonym waa meel gaar ah oo yar oo aan plagiarism lagu soo qaban karin waayo documentiga hadduu ChatGPT ku qoro maba la akhrinayaba saasa loo qabanayaa waxa la gelinayaa plagiarism check baa la gelinayaa boqolkiiba boqol ChatGPT waa qoray baa la oranaya ama boqolkiiba boqol internetka laga koobiyay baa la oranaya si fudud baa lagu soo saaraya scholarship-ka haddii aad bedelaashay oo application fiican samaysatay statement-yadaada gacantaada ku qoro adigoo kaalmaysanaya internetka iyo ChatGPT iyo wixii kala isticmaali karto iyo dadka qofka bil aadanka isaga ka fiican ChatGPT wuxuu dareemi karaa waxa ka khaldan qofka aqoonta u leh wuxuu dareemi karaa nonsense-ga macnaha hoose ku jira qofkuna uu ku caawin karaa hadaad qof u dhiibanayso ugu dambeyntii qaybta ugu dambaysa marayna abti itaawada qaybta ugu dambaysa dushaan ka sharaxaya markaad scholarship-ka xarayso interview-gii laga qaaday natiijadu way iska fududahay ama waa inaad hesho ama inaad weydo Soomaali rejected ah mid saddexaad baa jirto scholarship-adu leeyihiin in lagu geliyo waiting list in waiting list lagu geliyo macnaheedu waa maxay 20 qof baa loo baahnaa in la qaato 20 qof oo fiican baa la qaatay laakiin 10 qof oo fiican oo kala jira 10 kaas waxa la leeyahay reserve party waxaad noo taagnaanaysaa ridda haddii 20 kan aanu qaadanay mid ka mid ah uu scholarship-ka aqbali waayo ama fiisihii dalku galka hadhow loo diido ama problem kale ku soo baxo ama waa bil aadan uu dhinto bade scholarship-kaasi 10 qof qofkii ugu sareeyay ayaa la siin doonaa u dhamaado maanay betriga marka scholarship-ka marka aad xareyso dhamayso waxa lagaga baahan yahay codkayga qaybta ma maqlaysaan waxa lagaga baahan yahay in aad deganaanta inta uu xareysan yahay moralku waa adag yahay mehelaya mise mehelayo arrintaasi arrin adiga ku taalama in la waayo inaan la heliyo u taala ilaahay baa u taala Soomaa ilaahay baa risaaqada bixiya adiga waxa ku taala inaad dadaasho shaqada aad qabato ha ka walwalin markaad xareyso xogaa naftu walwal way leedahay mehelaya mise waa mooya shaqo ku taala adiga ma qodobka labaad waxa weeyaan scholarship-kii follow up inaad samayso inaad email la diri karto waad oran karto 3 bilood baad iga maqan tihiin qoladiinii scholarship-ku
saddex bilood way badan tahay natiijadii maxaa ku dhacay waa inaad email la diri karto emailadu yeysan kaa fara badan haddii marka hore lagu sheegay lagu yidhi waqti hebel baan kula soo hadlaynaana scholarshipbada 99.9 waqtiga lagula ballamay ayaa lagula soo hadlayaa dadkaasi beenta ma yaqaaniin ballanka baxna ma yaqaaniin intaan scholarship xareynayay hal jaamacad iyo hal scholarship baan arkay wax been leh oo waqtigay qabsadeen waqti ka dambaysa ila soo hadlay laakiin uma baahnid inaad email follow up u dirto haddii aad hesho alxamdulillah waad aqbalaysaa aqbalaaduna waxay u baahan tahay process inaad warqadii saxeexdo documentiga aqbasho dib u upload garayso documentiga acceptance letterkii haddii aan scholarshipku acceptance letter kaaga baahnayna waa meesheeda haddii aad weydo meeshan weeyaan meeshan u socdaa oo rejected lagu siiyo ku qoray handling rejections waa mowduuc gaara sidee loo maareeyaa guuldarrooyinka waxaa laga yaabaa maalinta koowaad scholarship xarayso adigoo niyad fiican leh oo scholarshipka isugu kaa toosan tahay in lagu yidhaahdo rejected oo regret letter lagu soo diro haddii aad niyad jabto oo aad tidhaahdo waan guul daraystay khasaarahu adiga unbu ku gaadhay waayo adigaa mar hore isdiyaariyey recommendation letter doontay motivation letter qoray khasaaraad qabtaa qoladii scholarshipka kuu diiday khasaare ma qabto saas darteed rejectionka sida loo maareeya waa maxay waa lagu celiyaa waad weyday somaha ku celi waad weyday somaha ku celi waad weyday somaha ku celi waan hubaa 50 jeer 100 jeer 5 jeer 4 jeer haddaad ku celiso mar ka mida muhiima somaa inaad hesho adiga markaa kuu muhiima 10 warqadood rejected ayaa ku dhibin hal warqado acceptance letter ku dhex jirta hal warqado acceptance letter ayaa ku dhex jirta marka rejection ku waa meesha ugu badan ee lagu kala haro qof baad scholarship wada xareynaysaan uu waayayaa uu ka haray kaliya baa soo haray xaree waad weyday ku celi waad weyday ku celi waan huba qofka 3 jeer waliba aan ku degdego qofka 3 jeer xareeyay scholarship aan ku degdego waliba go'aan aan qaato haddaad 3 jeer scholarship isku xiga xareyso 100% waa huba inaad heliso waa tajribo waayo waxaad baranaysaa maxaad khaladay markii koowaad maxaa kaa khaldan jaamacaddu maxay rabtay documentiga ka maqnaa interviewga haddaad ba soo gaadho 2 jeerna 100% iyadoo helaysa waayo haddaad mar interviewga soo gaadho macnaheedu waa maxay qof ka fiican un baa tagay meesha mooyaane sabab kale oo lagu reebay ma jirin qofka ka fiicnaana waad ogaanaysaa wuxuu kaaga fiicnaa ma khibrad shaqo ma luqad ba ma documenti ba ma e-saygiisa ka qurux badnaa ma markuu su'aalaha ka jawaabayay ayuu ka fiicnaa abti ku soo ugu dambeyntii Soomaalideena maxaa challenge ka haysta waa meesha ugu muhiimsan aynu ka wada hadli doono waanan fududeynaya si aan su'aalo ugu bedelno nidaamkeena waxbarashadu iska yara tabcaan marka ma saacidayo qofku inuu internationally competitive noqdo qof diyaarsan oo caalamka la jaan qaadaya Soomaalidu ma soo saarayso qofkii doonaya inuu soo saara waa inuu isagu soo saara dadaala shaqaysta challenge-ga labaad ee haysta waxa weeyaan luqadda dhammaan ma haysano luqad Ingiriisi waxaynu ku cadeyno ama luqad Ingiriisi kuma hadalno Carabi fiican xitaa kuma hadalno luqado qalaad oo Spanish iyo France iyo waxyaabo noocaasana ma naqaano saas darteed scholarshipada adduunkana luqada Ingiriisiga ugu badan luqada Ingiriisiga hadii aadan shahaado ka haysan meelo badan shahaado lagu weydiinayo challenge-gaasi uu ku xakameynaya uu ka reebaya fursadaha waynu sheegnay challenge-da sida looga dhunto haddii la leeyahay luqad Ingiriisi keen sidoo kalena waxaa laga aqbalayaa luqad Ingiriisi oo medium of instruction ah oo jaamacadaadi ka soo helayso way fududahay taas laakiin hadday noqoto shahaado English oo IELTS ama TOEFL keen waxaad u baahan tahay inaad iyada keento haddii aad iyada keeni weydo ma soconayso waa barrier iyo challenge inaga haysta haddaan Soomaali nahay inaan scholarshipada caalamiga xareyno waxaa scholarshipada caalamiga inaga haysta awareness xog kama hayno waxaa laga yaabaa caawo 10% qof oo ka mid ah deegaankeenan ama inteena halka fadhida scholarshipada aan taxay kuwa ugu waaweyn inaysan maqal ama aysan weligood arag marka awareness la'aan Soomaalida ka haysata inay scholarshipadi raadiyaan caalamka laga helayay internetka baaraan waqtiga TikTok iyo YouTube-ka iyo Instagram-ka iyo Facebook aad ku luminayso aad geliso wax naftaada anfacaya oo aad adduunka la socoto xagee scholarship laga bixiyaa xagee scholarship bixisa deeq waxbarasho xagee bixisa dalkee bixiya jaamacadee bixisa institution-kee bixiya challenge-yada kale in haysto waxa kamid ah isku day la'aanta scholarship-kan waa idin sheegay caawa waa huba 100%
toddoba qof shan qof oo kamid ah isku dayi doonta scholarship-ada intiina kale waxa laga yaabaa mar raba inaan idin jabiyo inaad tiraadaan adoo xiiseynaya ka baxda meesha kadibna xiisuhu uu berri saadama ka dhamaado scholarship waxa hela qof kasta qofku ka gaajaysan yahay oo ka dadaal badan yahay oo ka mitidsan yahay baa hela haddii aad doonayso adigoo sariirtaada fadhiya oo ay kugu socoto macaanku kugu socdo aad bay u adagtay inaad kaga soo qaado laakiin haddaad diyaarsan tahay fursad aad meeshay gashaba ka dabagelayso xaraynayso isku day wado oo aad guuldarrada u bareerayso waan hubaa maalin u baad kaga soo qaadaysa meelaha kale Soomaalida dhibaatada inaga haysato waxa kamid ah jaamacad doorashada waxa laga yaabaa in jaamacadaha admissionka laga helo caalamiga inagu adeegin sida admission looga helo raali hada bismillah jaamacadaha caalamiga admissionkooda inuu adeeg yahay laga yaabaa oo lagu yiraahdo EC qor research balan noo soo dir waxyaabo noocaasa meelaha qaarna waxa laga yaabaa scholarship-ada inay kaaga xiran tahay inaad admission soo hesho marka hore scholarship-ada qaybna waa la xareeyaa jaamacadda mar bay ku wada siinaysaa qaybna admission baa la dalbadaa kadibna scholarship-ka la xareeyaa si aad jaamacadda u hesho haddii markaa lagu yiraahdo jaamacadda dalbo oo xareyso inaad jaamacadda website-keeda geli karto shuruudaha fahmi karto haddii fee ku xidhan yahay jaamacadda inaad feega iska bixin karto inta badan waxaan idinku talinayaa inaad raadisaan meelaha feega aan la iskaga qaadin Europe oo kale jaamacadaha inta badan waa free admissionadu haddii ay wax ku xidhan yihiin $10 ama $20 ama meelaha ugu qaalisan $50 baa ku xidhan marka waa inaad fahamtaa admission sida loo helo oo admission loo soo qaato admissionka kadibna loogu raadsado fursado waxbarasho marka Soomaalida waa laga yaabaa inay ku yar adag tahay maadaama jaamacadaheenu inta aad adigu tagto aad is qoran moogta jaamacadaheena aad tagaya waa is qoraysaa laakiin jaamacadaha adduunka dadku u diyaarsan yihiin internetka ka soo xareeyaan magaalo kale ka soo xareynaya internetka loogu soo jawaabaya emailkiisa ugu soo dhacaysa portal ku maraya shuruudaha lagu xuraya in waxa laga yaabaa shahaadada secondary lagu xiro laakiin iyaga waxa lagu xuraya research-ka motivation letter waxyaabo noocaas in lagu xiro marka inaad u diyaarsan tahay inaad challenge-ga jaamacadaha doorashadooda kaaga imaanaysa aad u dul qaadato wadii aad garan weydo aad qof weydiiso oo tiraahdo kale iga caaw waa meelaha dhibaatadu inaga haysato meelaha ugu badan ee dhibaatadu inaga haysatay kale waxa kamid ah scholarship-ada inta ugu badan waxa lagu bixiyaa meelaha qaar inaad soo shaqeysay oo kale khibrad shaqo oo kale Soomaalidana khibradda shaqadu way ku yar tahay waayo dadkeenu ma shaqeeyaan shaqo abuur badanna ma jiro dadka dawladda u shaqeeyana waa yar yihiin kuwa hay'adaha u shaqeeya waa yar yihiin kuwa businesska ka shaqeeya waa yar yihiin kuwa shaqeeya laftigooduna wax professional ah oo emailo leh oo website-do emailadooda ku xiran yihiin oo shaqadooda cadayn kara ma waayo marka tiraahdo waxaan ka shaqeeyaa Hotel Sky oo aad qorato waxaan ka ahay manager waa in Hotel Sky website uu leeyahay laga helayaa internetka haddii lagu baaro waa in Hotel Sky uu jiraa meel uu ku yaalo si loo hubiyo Hotel Sky inuu jiro marka waxaynu ku yar dhibaataysanahay dadka professionalka inoogu jira wada professional ma shaqadii la rabay inay ku cadeeyaan scholarship-ka ayaa laga yaabaa in ay ku cadeyn kari waayaan marka inta badan Muqdisho kale aan ugu aqaana dawladda dadku aadaan dadka scholarship-ada aadaya waxay yiraahdaan dawladda aan u shaqeynaa kadib dawladda maxaad ka helaysaa emailka officialka ah website-kii letterhead-kii shaambadii wixii dhamad ka helaysaa qaarna NGO-yada aadaan adigu hadda la saxan dad ku sugan tahay NGO-yada aadi kartaa aad ka shaqeyso jaamacadkaad aadi kartaa aad ka shaqeyso waxaad aadi kartaa iskuulaadka aad ka shaqeyso laakiin waa inay professional yihiin waa in marka la Google gareeyana aan heli karaa emailna aan ka heli karaa haddii aan fariin u soo dirana laga soo jawaabi karaa waa challenge Soomaalida u gaar ah oo loo baahan yahay in aan wax ka qabanno asa jamac ahaan challenge-yada qaarna waa naftaada luqadoo kale haddii aadan aqoon barode Soomaa luqadda haddii aadan aqoon waa inaad barataa waa challenge aan dawladda Soomaalida ka xalin karin TSC-na u malayn ma inay ka xalin karto luqadda haddii aadan aqoon baro adeero barefadkii calikiin baan anaga ku baranay halkan ku yaalay marka barefad hadduu magaalada jiro iyo barefada kale gal YouTube gal meel kasta gal luqadda Ingiriisiga waa inaad ugu hadashaa sida biyaha khasab maaha inaad ku gabaydo khasab maaha inaad ku heesto waa inaad waxun ka garanayso shahaadooyinka caalamiga qodobka ugu dambeeya inoo noqon doonaan aynu ka wada hadli doono laakiin challenge-ga ugu weyn ee scholarship-ka Soomaalida saameeya ama inoo diida waa maxay xog ma hayno maba jiraan scholarship-badani ma jiraan xog kama hayno challenge-ga labaad waa maxay luqadihii scholarship-adaas lagu xareynayay fursaadkaasi dalkeena kama jiraan ama personal ahaan inagu uma naqaan
waxbarashadii dalkeena iyo deegaankeenu ma taageerayso inaynu waxbarasho caalamiya la jaan qaadi karno cilmi baaris ma samayno oo cilmi baarisyadu way nagu yar yihiin scholarshipbada marka ay PhD gaaraan inta badan cilmi baarisya lagu bixiyaa iyo in qofku cilmi baaris iyo publications uu leeyahay marka challenge-yada wixii adiga ku khuseeyo xalli wixii dawladda Soomaaliyeed iyo TSC khuseeyo TSC iyo Soomaaliya u daa ta adiga ku khuseyso waa maxay shahaadooyinkaaga dokumentiyadaada ilaasho luqadaada Ingiriisiga baro systemka waxbarashadu inuu hagaago adiga hadda mas'uuliyad kama saarna waa systemka dawladda u taala iyo dalka sidii nidaamka waxbarashada loo sixi lahaa laakiin aduu shakhsi baa tahay ubax dambas ka soo dhaxbaxay ma aragteen dambaska ka soo dhaxbax kadibna ubax noqo kadibna adigu intaad baxdo caalamka la jaan qaad taabaabtii taa u dambeeyay qaybta u dambaysa waan iska sheekaysanaynaa waana soo koobayaa mikrofoonka waan iska daminayaa ma la maqlayaa qaybta u dambaysa waxa weeyaan waa sheekada waxaan uga sheekaynayaa u qadimi waaye waxa weeyaan haddaan sheekada hore ka sheegi lahaa waxaa laga yaabaa in aad xiisuhu lumi lahaa 2018 baan anigu jaamacadda dhameeyey August 31st jaamacadda markaan dhameeyey isla sanadkaasaan scholarship bilaabay inaan xareeyo isla sanadkaasee ayaan scholarship bilaabay inaan xareeyo waxaan xareeyey iskuul la yiraahdo KDI Korea Development Institute School of Public Policy and Management wuxuu ku yaalaa magaalo la yiraahdo Sejong oo ku taala South Korea jaamacaddii waxaan ka qalin jabiyey bil gudaheed isla bishii baan xareeyey scholarshipka nasiib wanaag document stage waan soo dhaafay waxaan imi interviewga waan xasuustaa su'aalihii la weydiiyey su'aalo aad u adag bay runtii ahaayeen oo aanan filayn rajaynayna junior baan ahaa oo alla reebay wiilal kale oo ila tartamay oo reer Muqdisho ayaa iga guuleystay rejectionkii koowaad baan qaatay 2018 December 3 waana xasuustaa waxa lagu yiri Cabdixakiim haye scholarshipkan waad ku guuldareysatay nasiib wacan xoogaa bilowgii hore waa niyad jabay maadaama aan isla hawad u qalantay scholarshipka laakiin markaan arkay rejection letterka meel aad u dhaafto ma leh waan garaabay scholarshipkii ma cafin waa ku celiyay 2019 document stage waa soo dhaafi waayay awal interview baa imso ma hadda document stage baa lagu reebay waa markii labaad waa isla Korea corona baa dhacay waan iska daayay 20kii ma xarayn 2021 baan xareeyay qaybtii koowaad ee guga waa idin sheeka dhaafay 2020 baan xareeyay qaybtii labaad ee September waa markii saddexaad interview baan imi waan waayay markii afraad baa waxaan imi 2021 markan waxa lagu yiri maad waayin maadna helin waiting list baa la geliyay waxa lagu yiri hadii qof uu ka baxo scholarshipka waa lagu siinaya qof scholarship KDI helayna ma bixinayo dhammaan dadkii helay oo dhan way tageen markii shanaad ayaan anigu KDI 2022 ka helay afar jeer oo ku guuldareystay marna waan helay haddaan markii koowaad quusan lahaa ana lacag iga khasaartay waayo dokumentiyadeeda DHL baan dhigay $60 baan geliyay DHL-ka shahaadadii waa soo tasdiiqay $40 baa iga baxday xisaabiya waa $100 bajaaj baan raacay markaan u socday wasaaradda waxbarashada markaan u socday arrimaha dibadda markaan u socday jaamacaddeedu ku taalay Barwax markaan u socday waxa la yiraahdo meel kale markaan DHL-ka u socday markaan xaafaddeedu u socday $15 baa iga baxay lacag baa iga gashay $100 ilaa $120 la xidhiidha haddii aan iska daayo rejectionka koowaad qofka khasaaraha qaba waa ayo waa aniga waxaan arkay inay ku xidhan tahay in la heli karo in isku dayo badan la sameeyo isku dayada aan sameynayay mar kasta khalad baan baranayay mar waxaan bartay in khibradayda shaqadu yarayd khibradayda shaqadan kordhiyay mar waxaan bartay in luqadayda Ingiriisiga qaybta interviewgu ay daciif iyo tabcaan ahayd luqadii baan ku dadaalay inaan hagaajiyo mar waxaan bartay in application-kayga aan degdeg ku diyaariyay oo aan isbuuc u dambeeyay diyaariyay marka dambe waa ka taxadiray bil baan documentigayga maalinba mid diyaarinayay scholarshipkan waxaan xareynayay iyadoo 7 maalmood 5 maalmood 6 maalmood 10 maalmood ka dhimantay si aan uga cararo rush hour-iska saacadaha u dambeeyay ku celintu
iyo rejection in lagu siiyaa waa processka qayb ka mid ah qaybtaasi waa Kuuriya intaan Kuuriya xareynaya waxaan xareeyay scholarship la yiraahdo OBIC baa iska leh hay'adan shidaalka iska leh OVID baa la yiraahdaa isagana OFID baa la yiraahdaa waa Mareykan 9 boos bay bixiyaan waa Google gareyn kartaan 9,000 oo qof baa ku tartamay 9 boos iyo macnaheedu waa maxay kunkii qof maxay ku tartamayaan hal boos waa kun lagu dhuftay hal 9 lagu dhuftay inta boos 9,000 oo qof oo qofba qofka uu ka quality badan yahay uu soo xareeyay scholarshipkaas waayo jaamacadaha la helayaa waa Harvard University waa Stanford University waa Cornell waa Yale waa Michigan waa Columbia waa California Berkeley waa Brandeis University waa Williams College waa jaamacado in aad gashaa ay ku xiran tahay inaad lacag badan waalidka leeyahay ama nasiibkaagu fiican yahay scholarship hesho interview baan soo gaaray waa la reebay waxa lagu yiri junior bat maxaad soo kordhisay baa lagu yiri su'aashaas ka jawaabi kari waayay dunida maxaad soo saartay waayo dadkan la tartamaya baan eegay profile-kooda markii hadhow scholarship la shaaciyay waa mid Zambia meel yar oo kamida electricity u hagaajiyay mid meel yar oo Gambia kamida biyo geliyay mid meel yar oo Burkina Faso kamida arrimo yar oo bulsho ka sameeyay mid meel yar oo ku taala iskan meesh maxaa la yiraahdaa Caribbean-ka beer yar oo smart ka sameeyay oo kadibna website u sameeyay oo xogti haysta anu halka waxaan ka bartay scholarship-yada waxa anfaca oo muhiim u ah arrimaha la xiriira extracurricular activities-ka in aad adigoo wax baranaya nolol kale samayn karto oo volunteer la xiriira oo la xiriira inaad deegaanka ka shaqeyso oo leadership-kaaga inaad tijaabiso ah laakiin waa inay documentation ku leeyihiin haddaysan documentation ku lahayn hadhow kuma doodi kartid wiil Soomaaliya oo jaamacadda Brandeis University helay oo reer Hargeysa oo qofka kaliya Brandeis aan ku arkay ah ayaa wuxuu sameeyay electricity ku fiicnaa kadibna baadiyaha Hargeysa meelaha la xidhiidha ayuu wuxuu u qaybiyay solar si ay u helaan maxay koronto website buu develop gareeyay website-kiisa waad arkaysaa dad reer miyiga oo baadiye ku nool inay ka faa'iideen maxay koronto wiilka dhalinyarada ay uu sameeyay scholarship buu xareeyay anigu impact-gana sameeyay buu leeyahay haddii aad wax sii bartaana impact ka weyn he ayaan sii samayn karaa marka haddii aad baxdo galabta ama berri ama group atiin oo aad wax yar dhistaan oo arrin bulsho ah oo aad website u samaysaan oo aad maalinba in yar ku gurtaan tiraan maanta waxaan isu keenay laba islaamood iyo laba oday waxaanu kala hadalnay sida nabadda looga shaqeeyo inta pictures ka qaadaan ay gelisaan oo aad leadership-kiina try gareysaan arrintuna ay documentation in leedahay waan huba 100% scholarship shaqo iyo wax ka weynba in lagu heli karo qaybtaasna waa qaybta waxaan xareeyay jaamacadda Hamad bin Khalifa University waan waayay waxaan xareeyay Qatar University waan waayay waxaan xareeyay Kofi waxa la yiraahdaa Anan oo jaamacad ku taala Ghana waan waayay South Africa Nelson Mandela waan waayay DAD scholarship in region out region Kenya iyo lagu baranayo Nigeria waan waayay waxaan xareeyay Singapore National University waan waayay waxaan xareeyay Max Japan waan waayay waxaan xareeyay Rotterdam University Institute of Housing waan waayay Urban Planning waxaan xareeyay jaamacad la yiraahdo Passau iyo Osnabrück oo Jarmalka ku yaala 2019 labadaba waan waayay waxaan xareeyay 17 scholarship intaan 8 sano u dambeeyay waxaan helay ka Kuuriya kaliya iyo mid aan maalin dhow helay oo Jarmalka ah waa laba kaliya macnaheedu waa maxay 17 isku day baan sameeyay labaan ku guuleystay maxaan ku guuldareystay 15ka kuma dhex jiraan ka aad ku celcelisay waayo jaamacadda aan hadda helay ee Jarmalka ah 2019 bay ragrad leetar qurux badan indhaha iga dhufatay way igu tiri Cabdi uma qalantid inaad jaamacadda dhigato dad ka fiican baan helnay aan qaadanay 2019 weeyaan 20 ma xareyn 21 ma xareyn 22 ma xareyn 23 baan xareeyay si aan u eego bal markan inaan nasiibka tijaabin karo marka maxaan sheekooyinka waxaan u sheegayaa qofka Soomaaliga ah inta uu yaqaan aqaana inta uu English ka yaqaan ka aqaana scholarship-adan markaan xareynay IELTS exam aan haysan waxaan ku xareynay medium of instruction jaamacadeedaan ka qaatay shaqo weyn oo rocket science oo caawiye inuu yahay boss ma hayn
waxaan qoranayaa un shaqaalanimada dadku wada qortaan oo kale waxyaabaha aan isleeyahay laakiin way kuu shaqeeyeen oo scholarshipka sirta scholarshipka way tahay waxaa kow ka ah self driving inaad adigu iswado oo leedahay aniga Siciid baa la yiraahdaa aniga xareynaya scholarshipka maxaa meesha ka baxaya scholarshipkan ka sheekeeyay maalin kadibna commentiga ay soo galeen markii dambana messenger-ka ay soo galeen dadku waxay leeyihiin kaalay noo xareen anu lacag kama sameeyo xareynta haddaan xitaa ku xareeyo hadhow interview ayaa kaa qaadaya anigina been baan sheegayaa khasaarana waan gelayaa adigana khasaaraad gelaysa iyo xareeda waxaa ka fiican icaawiduna waxay fiican tahay markii aad basic hayso haddii aadan scholarshipka kuu qalma iyo ka kuu fiican aadan aqoon icaawi ma oran kartid waayo waxaan kaa caawiya ma garanayo tusaale haddii aad doonayso inaad meel aado laakiin meesha aad aadayso aadan garanayn miyaan ku tilmaami karaa tusaale ahaan hotel xamdi baad doonaysaa inaad tagto laakiin hotel xamdi magaciisa ma taqaanin caawiyo kaale ay tilmaan meel baan u socdaa walaal meeshu xagee aan ku tilmaamay waa inaan hotel xamdi helaa kadib aan qoranayaa hotel xamdi wadaa marta midna tuugay ka soo gashaa haddaad rabtana dhinaca gooja caddaa ka soo geli kartaa diyaarad baad qaadan kartaa dameer baad ku tegi kartaa mootaad ku tegi kartaa qaabka waa kuu sheegi karaa kow marka maxaa lagaa rabaa scholarshipka kugu habboon ee aad shuruudihiisa ka bixi karto inaad la timaado dukumentiyada lagu diray oo dhan aad diyaarsato kadib su'aalaha inaad weydiiso qofka garanaya sirtu waa maxay markaa iswad adigu yaan cidi ku wadin siraha labaad aan isleeyahay waa muhiim scholarshipka waxaa ka mid ah networkingku aad buu muhiim u yahay scholarshipka Kuuriya anigoo meherad xamar ku taala kooda luuliya la yiraahdo meel hadda kooda luuliya loo bixiyay 2016 laakiin aan jirin fadhina 15 December in ahayd baan u maleynaya waxaan arkay wiil aan saaxiibanahay Cabdiraxmaan la yiraahdo oo documentation sita iyo passport service oo casaana kadibna oo sheeko wadaag baan waxaan ku Google daraystay Cabdiraxmaan 2016 ayaan isla meesha anaga fadhina baan arkay Cabdiraxmaan oo maalin documentation fara badan oo wata aad noo faraxsan waan weydiiyay waxaan ku Cabdiraxmaan maanta maxaa soo kordhay markaas uu sheegay wiil scholarship-kan waxaan ku tagayaa dalka South Korea waa 2016 kadibna waxaan weydiiyay ma qof nool oo Soomaaliya South Korea taga aniga Korea de sheekaba kama haymid xitaa filmaantooda anu gabdhaha bay dhaamay kay drama daawadaan iyo K-pop iyo anigu shaqo kuma lahayn kadibna wuxuu yiri ha scholarship ka saneeray 2016 Cabdiraxmaan network weeyaan waa saaxiib aan lahay waan bartay Cabdiraxmaan WhatsApp-kiisaan save gareystay Korea aaday inta Korea jiray waan la xiriiray markuu soo noqdayna waan la xiriiray markuu soo noqdayna waxaan weydiiyay su'aalo sidee wax xareyn karaa xagee maraa wadadee maraa dokumentiyadaan la imi qaybtan iga caawi 2016 wixii aan ogaaday xogtii aan helay 2022 ay anfacday oo intee sano waa 6 sano 6 sano kadib baan tagay meesha aan 6 sano ka hor bartay network markaa waa muhiim hadda kan aan helay jarmalka ah markii aan sidaa u arkay inaan jaamacaddii ay aqbashay waxaan la hadlay wiil Facebook aan saaxiib ka nahay oo la yiraahdo Abdulfataax Ileeye waan reerkiisa Ileeye waan la xiriiray interview markaan galayay Ileeye jaamacaddaydu ka baxay aan anigu helay waxaan weydiiyay su'aalahan u baahanahay waxaan weydiiyay waxa iga horeeya anigoo og dhammaan shuruudaha la iga rabo dhan ayaan haddana waxaan isleeyahay u dadbadso un Ileeyaan la xiriiray Ileeya wuxuu igu warramay si kaal furan oo laab furan waxaan ogaaday markaa meelihii aan ku liitay meelaha aan ku liidan inta badan xog aan hayo ayaa laga yaabaa in lagu kordhiyo scholarship kama soo haro network Soomaali kaliya ma Facebook hadaad iskaga qorto scholarship-ka aad xareyso waxa laga yaabaa inaad hesho community dhan oo xareys tusaale caawa Facebook-ina ku qora dad scholarship ku qora waxaad helaysaa group dhan oo Facebook-a oo ay ku jiraan dad 1 milyan oo qof ku dhow dadkaasi ma dad scholarship-ka wada helay ma way Google gareeyaan su'aalaha la isku weydiiyaa page-ka scholarship-kaas aan rabaa inaan xareeyo igala taliya kadibna waxaad iska helaysaan dad aad isku area tihiin oo ka caawiya scholarship-ada network waa muhiim qofka aad ogtahay inuu dal aaday scholarship soo galay save garayso scholarship-ka raadi laakiin muhiim waxa ah inaad waqtiga iskaga lumin scholarship aanan fit kugu ahayn medicine hadda tahay ha iskaga lumin waqti caawiye medicine kama yaqaan
scholarship medicine caawiyo ma yaqaan social science haddaa tahay yes caawiyo waad la saaxiibi kartaa si wax kugu biiriyo scholarship haddaa tahay artist ama humanities la xidhiidha waa caadi waa la ka caawin karaa engineer haddaa tahay qof engineering ka yimi ayaad caawimo weydiisanaysaa waxyaabaha qaarna waa aqoonta iyo scholarshipka waxyaabaha qaarna waa procedureka waa la iska wada caawin karaa laakiin aqoonta markay tahay iyo scholarshipka magaciisa in lagu sheego sababahana lagu kaalmeeyo qof ka soo baxay ayaa unbaa kugu kaalmeyn karaa intaasi waa sheekadayda waxaan ugu dambaysiinaynaa English languageska oo maalmahan muhiim noqday in jaamacaadka dunidu ay aqbalaan scholarshipbadana lagu helo intiina IELTS awooda IELTS gasho IELTS ku afar qaybood buu ka kooban yahay dhageysi ku hadal qoraal iyo maxaa dhiman hadal waa sheegnay qoraal waa sheegnay dhageysi iyo akhris waa afar qaybood waxa lagu saxaa bandiyu leeyahay kowl ilaa 9 buu leeyahay jaamacadaha dunidu waxay aqbalaan intooda ugu fiican 6.5 wixii ka sareeya ama 6.5 marka qaarna in 6 laga aqbala laga yaabaa ma adka farsamo u baahan yahay laakiin farsamo waxa heli kara qofkii Ingiriiska markii hore meel fiican maray deedan Ingiriiska meel fiican marayn 3 bilood 4 bilood 5 bilood meel fiican waad soo gaarsiin kartaa Ingiriiska hadda daacad tahay waayo Ingiriisku gabigiisa waa inaad words haysaa qofka jaamacad ku jira 20 eray haduu yaqaanana Ingiriiska uu yaqaanaa haddii aad 4 taqaan hadda 10 kale eray ku darso erayada inaad xifdido ma haysid dictionary-ga inaad filmaan ku daawataa YouTube ku dhageysataa community aad ku dhex gasho kula hadasho deedaas aan joogto dhimo laha community diyaar jira oo internetka iska fadhiya oo doonaya inay Carabi bartaan adna Carabiga taqaana Ingiriiska kula hadal community waxa jira luqada taqaana yaqaana oo doonaya inay kula hadlaan Duolingo jira application aad luqada ka baran karto si kasta adigu adduunka ku nool inaad culays saarto inaad luqada baran karin ceeb iyo wajigabax ay kugu tahay adoo internet haysta 5 saacadoodna Facebook iyo Twitter iyo TikTok gelinaya wax aan macna kaaga soo kordhay luqada hal barto excuse ma wax excuse aysan ka yeelan luqada certificate inaad u qaadato xogaa qarash ay u baahan tahay Nairobi inaad u safarto ama jigjiga aado hadii aadan qarash ka awoodin has qarash karayn meeshaad iska joog waxa soo baxay imtixaan kale oo la yiraahdo Duolingo English test 4,000 oo institution ka badan baa aqbala maanta waliba Mareykan u badan Canada ku jirto UK-na way soo raacaysaa Jarmalka meelaha qaar waan arkay Netherlands waan arkay Duolingo English test IELTS ku la mid yahay ama TOEFL ku la mid yahay haddii aad Duolingo English gasho oo aad heli karto 100 wixii ka badan 100 baa ugu yar 95 waa laga yaabaa inaad hesho laakiin waa tabcaan 100 haddaad heli karto oo aad ka saramarto scholarship kasta iyo jaamacad kasta wada xareyn kartaa muxuu kaga duwan yahay IELTS-ka wuxuu kaga duwan yahay halkan inaga joognaan gali karnaa waa online laptopkaaga furaysaa $42 baad iska bixinaysaa qof mastercard leh baad oranaysaa iga bixi adeerka haduu dibadda joogo waxaad leedahay $42 mastercard iga bixi ama eedada laptopkaad furanaysaa Duolingo English test baad gelaysaa calaamadda Duolingo English test waa tan waxa jira Duolingo yaro application oo mobilada lagu soo dejisto oo luqadda laga barto kama kan waa website English test loogu talagalay haddii 75 page oo wuxuu leeyahay practice 75 page la deg haddii aad practice garayso 3 isbuuc luqadaaduna fiican tahay boqolkiiba 85 waxaan hubaa inaad 100 dhibco ka sareeyo keeni karto haddii aad iyada gacanta ku dhigtana waxa ku furmaya opportunity fara badan oo jaamacaadka inaad xareyn karto scholarship-bada inaad raadsan karto maalin dhawata wiil dhalinyaro oo reer Lascaanoda baa galay Maxamed Indo nin la yiraahdo Facebook soo dhigay 100 buu keenay uu galay waliba ma diyaarin buu soo qoray maan diyaarin buu yiri 100 uu helay haddii aad isku daydo Duolingo inaad gasho xitaa iyada naftigeeda ku celceli 2 maalmood kasta waad gali kartaa oo ka fiican tahay IELTS waxay u baahan tahay inaad bil kadib gasho laakiin Duolingo 2 maalmood oo kasta waad ku celin kartaa waana $42 aad bay u jabantay dhammaan institutionada Mareykan oo dhan waa laga aqbalsan yahay maanta magaaladaada aad joogaad galaysaa waa English certificate caalami ah way ku caawinaysaa qof kasta ha nood garaysto Duolingo practice-keeda ha ilaaliyo practice-keeda ha tijaabiyo qofkii xoogaa qarash ah oo familkiisu awoodaan ama isagu shaqaystana IELTS exam Nairobi ha tago ama jigjiga waxaad ku diyaarin kartaa haddii aad English fiican leedahay bil waad ku diyaarin